saddex shay oo nagu caawin karo tarbiyada carruurta. Midda koowaad, waxaa u baahan tahay inaad isbartid dhageysiga carruurta. Carruurta markay kula hadlayaan, carruurta markay sheeko kuu sheegayaan, carruurta markay iska daldalmayaan, dhageyso waxay sheegayaan. Taasoo kaa caawinayso cunugaada muxuu jecel yahay, muxuu neceb yahay, dabeecadiisa maxay tahay, saaxiibada maxay yihiin, information dhan aad helaysaa. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay inaad u noqotid carruurtaada qof ku dadaasho fiican. Waa inaad kaa arkaan sida dadka kale ula dhaqmayso, dabeecad wanaago, maxaa la dhihi jiray, deganaansho, waxyaaba xataa hadaa aadi lahayn carruurtaada hortooda isku day in ay kaa bartaan dabeecad wanaagsan iyo ku dadaasho fiican aad u noqotid. Midda saddexaad, bar carruurtaada in wax ay xalli karaan. Waxaa aad u fudud haddii xalis loo baahdo in isla markii wixii aan u xallino saas oo fudud u tahay. Laakiin anaka ma rabno waxaa dirtaan, waxaa rabnaa wax mustaqbalka sooma. Marka waxaa bartaa sida wax loo xalliyo. Dhibaatadaana dhacday, sidee lagu xalli karaa? Saan baa dhacday, sidee lagu xalli karaa? Bar adna ha kaaga dadaydaan iikane bar solution. Kasoo qaad laba cunuga isdirirtay meesha isla markii dhexdooda kala dhexgal lahayd, bar horta inay lis xalliyo. Taada kale waxaan idiin hayaa